الله والله 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 الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada abna official. insha allah muuqaalkan waxaan kaga sheekeyn doonaa taariikh kooban oo ku saabsan nin taajir ah oo u dhashay dalka Mareykanka, kaas oo asalkiisii hore ahaa mid ka shaqeeya nadaafadda musqulaha, kadibna noqday guuleyste weyn taajir ah. fadlan janalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. sheekada waxay ku bilaabanaysaa sheekooyinka guusha ee ganacsato badan ayaa had iyo jeer ah mid dhiirigelin, sababtoo ah halganka, dadaalka iyo go'aan qaadashada inay gaaraan guul iyo inay gaaraan yoolalkooda ayaa ah midda ugu muhiimsan. waxaa ka mid ah sheekooyinka dhiirigelinta leh sheekada iibiyaha miraha geedka loo yaqaan strawberry-ga. sheekadiisa waxay ku bilaabmaysaa wuxuu shaqo ka codsaday shirkadda Microsoft. shaqadana waxay ahayd nadaafadda musqulaha. ninkii maamulihii ayay wada hadleen, balan ayay wada dhigteen. kadib ninkii maamulihii wuxuu dhahay ii sheeg emailkaada si aan kugu soo diro waqtiga aan kulmeyno. ninkii ayaa ku jawaabay inuusan lahayn email ama kombiyuutar. maamulaha ayaa yaabay oo yidhi, weli ma jiraan dad aan haysan kombiyuutaro shaqsiyadeed ama email. tanina ma ahan mid la jeclaan karo inaad hesho shaqada. ninkii way ku adkaatay inuu shaqada helo maxaa yeelay muusan lahayn wax email ah. ninkii wuxuu ka baxay wareysiga asigoo xanaaqsan oo cara ka yara muuqato. ninkii wuxuu bilaabay inuu ka fikiro inuu haysto $10 oo keliya iyo sida uu shaqaysiin lahaa $10. ninkii wuxuu ku iibsaday qadar tiro ah strawberries ah, wuxuuna iibiyey tiradii uu soo iibsaday. wuxuuna is arkay dhammaadka maalintii isagoo ku guuleysanaya ku dhawaad 2 laab lacagtii. wuxuuna bilaabay inuu ku celiyo taas dhowr maalmood. wuxuuna bilaabay inuu kasbado lacag aad u badan, wuuna laabay qadarkii strawberry-ga ee maalinlaha. muddo kadib ninkii wuxuu urursaday xoogaa lacag ah, wuxuuna go'aansaday inuu iibsado baaskiil si uu u iibgeeyo miraha strawberry-ga. isagoo laabay macaashkiisa, wuxuuna awood u yeeshay inuu iibsado gaari yar oo xamuul ah, isla markaana uu aasaaso shirkad yar uu ku iibiyo strawberry-ga. dhowr sano gudahood ninkii wuxuu noqday taajir. 5tii sano ee kalena wuxuu yeeshay bakhaarka ugu weyn ee cunnada iyo dalabyada strawberry lagu iibiyo. shirkadaha caymiska ayaa bilaabay inay ka codsadaan isaga inay ceymiyaan guriga iyo shaqadiisa, uuna soo gudbiyo shirkadiisa emailka ay leedahay. ninkii taajirka wuxuu ku jawaabay, weligay ma yeelan email iyo kombiyuutar. maamulihii shirkadda caymiska ayaa yaabay oo yidhi, sidee ayaad ugu guuleysay inaad dhisato mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee cuntada adigoo markaas aadan lahayn wax kombiyuutar ama wax email? ninkii ayaa ku jawaabay, ka waran haddaan ku dhaho maanta email haddaan lahaan lahaa waxaan noqon lahaa nadiifiyaha musqulaha ee shirkadda Microsoft. haddaba sheekada iibiyaha strawberry-ga ayaa xambaarsan casharo fara badan. ha ka murugoon wax kaa lumay, allaha awoodda lahi ayaa kaa abaalmarinaya. waxa adiga kugu fiican ilaahay ayaa kugu abaalgudaya. allah ku xirnoow weligaa. fadlan haddii uu muuqaalka ku cajabiyey subscribe saar insha allah si kusoo gaaraan muuqaalada.